madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya oo ay weheliyaan ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya gudoomiyaha golaha aqalka sare mas'uuliyiin ee dadweyne kale ayaa masjidka isbahaysiga islaamka salaada janaasada kula dukaday marxuum Cabdullaahi Maxamed Shirwac oo xalay ku geeriyooday magaalada Muqdisho waxayna la uga baryeen in jannadii Firdawso ugu deeqo marxuum Shirwac oo kamid ahaa dadka sida weyn uga soo shaqeeyay nabadeynta dalka iyo wadeegida bulshada Soomaaliyeed xilliyadii adkaa ee dalkeenu soo maray madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo tacsi u diray qoyska ehelada iyo asxaabtii uu ka tagay ayaa tilmaamay in marxuum Shirwac uu ahaa shakhsi muhiim u ahaa qaranka Soomaaliyeed kuna suntanaa wanaag falista marar badan naftiisa khatar u geliyay sidii dadka Soomaaliyeed u heli lahaayeen nabad wada noolaansho iyo dawlad dhisidda dalkeena mujtamaca Soomaaliyeed meel kastoo ay ku nool yihiin inuu adeego ahaa oo aad iyo aad ugu caam ahaa uu ka shaqeyn jiray nabadda iyo isu keenidda dadka ayuu ka shaqeyn jiray noloshiisa shaqo kale iyo mehnad kale oo anagu runtii aan intaan aqoonay muddo dheer aan aqoonay Shirwac aan ku aqoonay ma jirin oo aan ahayn inuu ka shaqeeyo musaalaxada iyo nabadda iyo inuu ka shaqeeyo iqaasada iyo gargaaridda dadka sabri iimaan dadka Soomaaliyeed meel kastoo ay ku nool yihiin sabri iimaan Allah ka siiyo ehelkii iyo qaraabadii iyo ka baxayna sidoo kale dadka Soomaaliyeed ayaa loo tacsiinayaa wuxuu ahaa shakhsi Soomaali ah ayuu aan ka sokaynin Soomaali oo uga sokay aan jirin midnimada dalkan iyo midnimada dadkan iyo dhowrista dadkan iyo dalkoodana u soo taagnaan muddooyinkii aad iyo aad u dhibka badnaa ee dalkeena aan soo marnay anaan ogahay dhowr mar inuu xataa nafsadiisa khatar u geliyey inuu mowqif ummadda loogu gargaarayo ama warka saxar u sheegayo oo qaato marka waxaan leeyahay saaxiibkeen Cabdullaahi Maxamed Shirwac Allah u naxariisto sabri iimaan dhammaanteen Allah nagu wada siiyo figar ama qof wuxuu ahaa heer qaran ah tacsi qaranna waa loo dhigi doonaa aaskiisa kadib haddii alla yiraa dadka Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaanna waxaan ka codsanaynaa inay u soo duceeyaan in Ilaahay jannada Firdawso ka waraabiyo aad iyo aad ayaa u mahadsantihiin wasalaamu calaykum Nasr Bashiir Cali warbaahinta qaranka magaalada Muqdisho.